qalbiga hadda ilama joogo waa qiso dhaba raantii aniga aad ii qusaysa qalbiga hadda ilama joogo oo xataa isma oga hadeerba baraha bulshada Soomaalida caawa waxa qabsaday hambaliyada arooska fanaaniinta Mubaarak October iyo Farxi Fiska qisadooda jecel maxaad ka ogtahay maxaase xilligan ku soo beegay oo waxay jawaab cad u tahay arooska saygeedii hore ee Bashiir Hanuuniye iyo gacalisidii sanad minashaad si muuqaalka hambaliyada arooska lamaanayaashan xisaab ahaanta kala fog ay meel walba u gaarto like saar muuqaalkan ku soo biir page-keena oo follow dheh si aysan ku dhaafin barnaamijyadeena kale subscribe saar haddii aad YouTube-keena naga daawanayso ku mahadsanid jaanqaadkaaga fanaanada miisaanka culus ee Farxi Fiska ayaa mar kale iyadoo aroosada ka soo muuqatay shaashadaha xilli ay markan beec xorta kula wareegtay ciyaaryahanka aan bandhiga fiican inta badan ka sameeyay fanka miisaanada yar ee Mubaarak October yelkoode hadda iyaga ayaa loo sacabtumaya oo lagu tilmaamayaa lamaanayaal wada aqal galay fanaanadan weyn ee Farxi Fiska oo caan ku ah in heshiisyo guur ay ka siixato wiilasha da'da yar ayaa markan heerka labaad ka soo dalacsiisay Mubaarak October oo xilligan kadib la caweyn doona boqorada codka kadib markii uu maanta meherkoodu dhacay sida lagu faafiyay baraha xiriirka bulshada dhinaca internetka qisada lamaanayaashan ayaa la sheegayaa inaysan ahayn mid ku soo booda ah balse taa cagsigeeda waxa ay wada lahayn xiriir jecel muddo badan caawa markii ugu horeysay la faafiyo sawirada lamaanayaashan dadka qaar ayaa mooday inay barankii tahay balse ilo badan oo lagu kalsoonaan karo ayaa qarxiyay falkaanada ifisay guud ahaan baraha bulshada si loo caleemo saaro mudanaha iyo marwadiisa oo aan kala jeedo Mubaarak October iyo Farxi Fiska dadka qaar ayaa qaybaha faallooyinka ama commentiga ku kaftamay oo yiri Fiska markan way ka soo dartay saxiixa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa inay sameeyso waa arin la yaab leh iyo waxyaabo la mid ah balse kuwaasi ma xasuustaan heestii Maxamed BK ee ahayd qof weyn ani ima tihid iyo sida uu dooq isugu qurxin karo ama uu isugu dhaweyn karo lamaanayaal xisaab ahaan aad u kala fog waxa laga yaabaa inay cajiib kula noqoto Fiska iyo Mubaarak October oo wada aqal galay wararka qaar waxay sheegayaan in meherkooda uu ka dhacay Hargeysa inkastoo xisaabaadka meherka aan wali la shaacin balse sawirada waxay u muuqdaan kuwa aad looga shaqeeyo oo banaanka keenay dhismaha qoyskan faneed ee aad loogu wada sacaabatumayo midowga lamaanayaashan ayaa ku soo beegmaya xilli fanaanada caanka ah ee minashaad ay bilowgii bishan isku feereysay seegii hore ee Farxi Fiska ee Bashiir Hanuuniye balse markan Fiska ayaa sheekada dhanka kale u rogaysa kadib markii ay ismehersadeen iyada iyo wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah fanaaniinta hibada leh ee hadda ku nool Hargeysa ugu dambeyn waxaan hambalyo leenahay lamaanayaashan dunida iska calmaday waxaan u rajaynayaa nolol qurux badan oo waarta ilaa dhamaadka haddii aad nala joogtay ha hilmaamin inaad muuqaalkan like saarto sii share garayso ku mahadsanid la jaanqaadkaaga